بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين داودياشا قيمها بدن التي في كان سومالي جنرال ملك ستود كجوكتان دنيا دعالة هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمها بدن وكسو دوادا برنامج كاني مالك كستود تلادا ساعدا نقل إذن كي من هي استوديو سومالي جنرال مقالة لندن ستوسا برنامج كاسو مقلسو يها الشريعة برشدة ومركز تانكو فلنقينو موضوع مهم جدا oo dadku u baahan inay wax ka ogaadaan oo kamid ah mowduucda aadka muhiimka u ah maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa barnaamijkeena fiqiga la yiraahdo fudaydinta ama fiqu taysiir carabi lagu yiraahdo ama af Soomaali markii loo bedelo noqonaya fudaydinta ama diinta ama shariicada islaamku waa wax fudud weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri yuriidu Allahu bikum al-yusra wala yuriidu bikum al-usra Ilaahay wuxuu idin la doonayaa fudayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma idin la doonayo wax culays in lama doonayo sida daraadad marka shariicada islaamka ama diinta islaamku waa diin fudeed ah bidabeecatiha marka maanta waxaan mowduucan ku qaadan doonaa muxuu yahay macnaha fudeedka ama mataqaana shariicada islaamku ee fududahay muxuu yahay waxyaalaha lagu garto ee macaalimta ama tilmaamaha ama maxay yihiin qofka hadii uu qaato ruqsooyinka iyo waxyaalahan mataqaana ruqasta ee la baneeyay waxiga oo ruqasta uu daba ordo oo uu cazaamti ka tago muxuu noqonayaa waxaas oo dhan baan ka hadli doonaa barnaamijkeena maanta waxaa inoo soo diyaariyey oo stuudiyaha Soomaali Janna nala jooga sheekh kamid ah culimada Soomaaliyeed ee wadankan degan UK waa Sheekh Saciid Maxamed Ducaale Sheekh Saciid Maxamed Ducaale waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo dhexe iyo sare wuxuu ku soo qaatay wadanka Soomaaliya wuxuuna ka soo baxay dugsiga sare ee Janna Daawud kadibna wuxuu tagay wadanka Sacuudi Carabiya wuxuu galay jaamacadda Islaamiga ee ku taala magaalada Madiina Munawwara wuxuu ka soo baxay kuliyada shariicada lagu barto ee ku taala jaamacadaas ee Madiina Munawwara ku taala ayuu wuxuu ka soo qaatay macnaha jaamacadiisii ama marxaladda jaamacadda waana imaam iyo khatiib hadda wuxuu ka yahay masaajid ku yaala bariga London oo lagu magacaabo Masjidul Huda ayuu imaam iyo khatiib ka yahay marka hore ku soo dhaw Sheekh Saciid jazakallahu Soomaali Janna waxaan rabnaa Sheekh Saciid bal inay dadku fahmaan waxa laga yaabaa in Soomaalida ku cusub tahay inuu macnaha diinta inay dadku fahmaan shariicada islaamka iyo diintu inay tahay wax fudud oo culays aan lahayn marka bal noo sharax fudeedkaas diinta ay fududahay muxuu yahay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam amma ba'd aad baan kugu mahadinayaa adiga iyo TV-ga Somali Channel khayrka u taagan jazakumullahu khayran inta kadib diintu asliyan waa iska fududahay إلهي سبحانه وتعالى كدغاي دينتنا دين فدود آيات ku bilaabatay يريد الله بكم اليسر وإرادة الله إلهي بابا doonay إلهي wuxuu doonay inay diinteenu isku noqoto diin fudud marka fiqh taysiir macnaheedu waxa weeyaan inay dadku fahmaan dadka muslimkiina ay fahmaan inay diintu tahay aslan diin iska fudud oo maxay noo cadeynaya waa doonid إلهي baa doonay halka waxaan ka fahmaynaa haduu qofku diinta isku adadkeeyo doonida إلهي uu ka soo horjeedaa سادرت بآيات بدن إلهي سبحانه وتعالى حنا نقول تلمام يا اللي دين تفضل هذا آيات يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وحيقدم بيسي سونكي ودد كواوين إيو قفك نوجين إيو قفك حنوصنا إيو وحاصل نبا إن لقع فيه إلهينا وفضيت للدون إيو حتى الطهارة ده إلهي بركو هاللي ويصدق إيو إلا استاهر إيو وحيري ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم إلهي حرج يا رضي إذن لا مرحبا حتى الله سبحانه وتعالى مركا كوري محرماتك وحيبا إن لك حرمي حق النكاح يعني بقولسن كريم هو يدا ولاش أرمها صدق بالله سبحانه مركا سو شيء وحيري يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم إلى يدون فضي يدون يا وصلنا كوي هراء وإذا راعي حمر إنه تقعد كيو هذا حق سيدنا بيسي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إلهي وحدون يا مركز توحي هذا يريد إلهي بدونية إنه يدين فضيديو وهي إنسان كحكو أبوران ضعف جينا وحلا الصعدة اللي إلهي سجى خالق إنه أبورتاي إنه فضيديو أحكامته إيو نلاش إيو دين تبين إنه نقطة وحفظت سنو قبل حكرينه وهي ضعيفين بعنا هاي عقليا وجسميا وعلميا أنت ما إحنا قلنا هاي ضعفاء آيات عامة باتشرت إلهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أصلا إلهي حنوت ما من القرآن كون يسكت فيه ولقد يسرنا القرآن بإلهي القرآن كوعدي برشدي يكون لقن كيس وحصل دنبا مستر كينو با يمشون وحكا قادنا با أصليا بيبس كوضا فضل ضحي إن إلهي وحكرة المامية
huwa ijtabaakum wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilahay inuu ina doortay oo ummadda muslimiinta doortay diintana wax cidhiidhiya aan u gelin saa darteed baa ilahay xitaa rasuulka muxuu ku sifeeyey sifaadka nebiga maxaa ka mid ahaa laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayh ilahay wuxuu leeyahay nebi idinka mid a idin yimi oo ay ku adag tahay macanit waxa idin dhibaya tashadudkii adeygaba isagoo ku adag tahay oo diintu inaad si fudud u qaadataan buu jecel yahay xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim mu'miniintana wuu u dhibirsan yahay oo u naxariis badan yahay marka waa sifaadkii nebiga sala allahu caleyh wasalam inuu fudud yahay xitaa sifaadka nebiga sala allah alay slam ee kutubtii hore towraad iyo injiil ilahi subxana wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamaya qur-aanka inuu nebi yahay sahlanoo wayadacu canhum israhum walaqlaala alatii kaanat calayh nebigu inuu culaysyadii iyo dadkii hore culaysyadii saarnaa oo nijaastoo kale inay marada meesha gooyaan haddii qof la dilo diyo mooyaane wax yani diyo lagama qaadi jirin dil yani waxaasoo dhan ba nebiga sifaadkiisa ka mid tahay marka kutubtii hore lagu sheegay inuu inaga qaadi doono culaysyo badan oo ummadihii hore la saaray inagu markaynu ilahi subxana wa tacala baryayno ducaayinkeenna maxaa ka mid a rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina wakhta'na rabbanaa walaa taxmil calayna isra ilaahu culays hanugu xambaarin nebiguna wuxuu inoo sheegay ilahi subxana wa tacala ducadaa inuu inaga ajiibay oo uu aqbalay marka haddii oo mataqaanaa sheekh saciid diinta islaamku ay tahay diin fudud shareecada islaamku ay tahay shareeca fudud oo sahal ah oo ilaahayna nabiganan uu inoo sheegay qof diinta lama baratamo oo lama xoogtamo ilaa way ka adkaataa oo diintu waa yasiru walaa tucasiru bashiru walaa tunafiru uu yidhi maxaad is odhan kartaa waxyaalaha tilmaamaha ay leedahay oo aad tilmaan inay tahay diinta diin fudud qofka muslimka ee sheekha culimada looga baahay dadka inuu u fudaydiyo waxyaalaha mataqaana aad dhihi karto tilmaamaha aad usoo qaadan karta maxaa kamid a horta diintu waa iska fududahay qur-aankana ilaahi subxana wa tacaala aayaadkaa badan ba inooga sheegay waxaa ka mid ah si qofkii u fahmo su-aalaha badan ee madaxadayga ee bal halkaa sii raadiyo sii taxqiiji ilahi subxana wa tala wuxuu ya ayuha aladiina aamanu laa tas'alu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum haddii laydin tuso waa sadar saxaabadu su-aalo badan may weydiin jirin nebiga sal slam marka diintu qur-aanka kusoo dego si sahlan oo fudud baa laysaga loogu dhaqmi jiray diinta su-aalo badan iyo may jiri jirin iyo halkaa maxaa laga sii yiri iyo nebiga saas waxaad garanaysaa nin saxaabiya weydiiyey intuu nebiga cumrigiina marxajiya buu yidhi ma sanad kasta markaasuu nebiga haddaan odhan lahaa waa sanad kasta dee madana woodeen laanna adaygu iyo fudaydku waa dhaqanka dadkii hore suurat lbaqara magaca dhan maxaa looga dhigay reer banu israiil markii ninkii la dilay nabiyullaahi muuse uu ku yidhi gowraca neefkii qaaluu udcu lanaa rabbak mise jeer bay kusoo noqdeen qaaluu udcu lanaa rabbak qaaluu udcu lanaa rabbak kadibna ilahay kusii adkeeyey maalinka u hore haddii qal lahayn waa fududaan lahayd marka shareecada marka sida sahlan lagu sheego oo le aayaddaas waxaas ina amraysa xadiiskaas waxaas ina amraya masalada fiqiga waa sida inaad saa isaga qaadatidoo aada waxba sii qodqodin qodqodkaasi wuxuu keenayaa in qofkii markaa uu dee isku adkayo in wax isku adkayo marka taasi waa ta koowaad nebigu sal l sl saddex xadiis aad u badan inuu arrimaha inooga digay inaynaan diinta ka dhigin wax adag oo isagaaba yidhi bicustu bilxaniifiyati samxa waxaa layla soo diray diin iska fudud oo iska sahlan baa layla soo diray yasiru walaa tucasiru mucaad buu canaantay intuu dadka salaadii ku dheereeyey buu yidhi afataanun anta ya mucaad muftaan baad dadka diinta ka ereysaa marka diintu ku dhaqankeedu wuxuu ka bilowdaa qofku inuu si tartiiba uu bilaabo oo uu galo oo aanu isku adadkaynin saa darteed baa nebigu wuxuu leeyahay in allaha yuxibu an tu'taa rukhasa kamaa tu'taa cazaa'imu ilaahay wuxuu jecel yahay inaad ruksooyinkiisa wayna sii aan qaadano si uu jecel yahay inaynu go-aamadiisa oo diinta wuxuu nagu waajibin inaynu u qaadano marka laba arrimood baa muhiima su-aal badan iyo qodqodid badan waxay keentaa tashadud iyo adadayg inaad istiraahdaa malaasidani ma aha sidii saxda ahaydna oo shaki badan ka gashaana iyaduna waxay keentaa dhibaato badan bay keentaa marka diintu runtii waa iska fududahay xitaa cumar radi allahu canhu iyo ayaa wuxuu la socday safar marka isaga iyo cabdullaahi camar ibn alcaas iyo cumar iyo baa wada socdeen kadibna waxay yimaadeen meel dar ah xawd biyo laga cabayo markaasuu camar baa wuxuu yidhi yaa saaxib alxawd hal taridu xawdaka asibaacu darkaagan miyay yimaadaan duurjoogtu iyo maka cabaan cumar wuxuu yidhi laa tukhbirna fa inaa naridu sibaaca wataridu calayna annaguna meesha biyu maa ka cabnaa kusoo aroornaa sibaacuna wuu kusoo arooraa marka noo sheegin annagu yaanaan waswaasa noo sheegin
marka qodobka badan iyo waxaas badani xitaa saxaabadu aad umaysi jeclahan jireen saddex baa Umayr ibn Isxaaq oo taabici ah ayaa wuxuu leeyahay saxaabo aad tiro badan ayaan soo gaadhay oo iga horeeyay fama ra'aytu qawman aysara siratan dad dhaqankooda iyo siiradu wax iska fudud baahay tashadud iyo adayg badani mid baa laga yaabaa marka shakhsi arintaas halka marka aan si ay diinta yusreedan u ogaano laba aan u kala qaadno mid waa qofka shakhsiga ah oo isaga lafiisa ku tashadudo oo masaa'isha markii laga hadlo mas'ala kasta oo ka aragtay isagu ku dhaqma oo naftiisa waxay midna waa qofka sheekha caalamka ah dadka diinta u gudbinay marka macnaha labadaas kan hadii uu noqday midalan hadda nabigeena salaada qofku markuu kaligu tukanayo intuu rabaa taagnaadaan markuu dad tukanayna dadku ilaalinaya marka ma oran kartaa labadaas kala soocideeda waa muhiim oo dadku inay ogaadaan bay muhiim tahay aad iyo aad see marka lagu kala sooci waxna waa wax bulshada ka dhaxeeya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu si caama inoogu wajibiyay oo jamaaca inuu ku gudanayno waxa kamid ah salaadi ayaa kamid ah waxyaabaha bulshada ka dhaxeeya qofku waxa la rabaa inuu eego dad kala duwan ba ku tukanay mesela masaajidka oo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri imaamku inuu salaada fudaydiyo waayo wuxuu waxa ku daba tukanaya dal xaaja mid dan leh mid xanuunsanaya mid kale dhibaato kala haysato mid waayeela marka inaad muraacaatu naas dadka inaad ilaalisaa xitaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaanu garanaynaa intuu salaada galo ayuu israahda dheeray markaasuu wuxuu maqlaa ilmo yaro ooyaya markaasuu salaada yareeyaa salaada ayuu yareeyaa mucaad buu maagay oo salaadu ku dheereeyay oo nin geeliisi iyo waxa iska raaci lahaa suuratu baqara shihi marka wuxuu ina baray nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka marka aynu la joognona oo bulshadu ay wax wada fulinaysona in la iswada xaq dhowro oo la is ilaaliyo kaliya hadaa tahay wad dheeraysan kartaa saadooda u tukan kartaa soon haday tahay maalin dhaaf wad soomi kartaa soonka wad badsan kartaa sadaqada inta doontaad bixsan kartaa khayrkaaga waa wax adiga culimadu waxay kala tilmaamaan hadii koox tiin gaar ah oo isla og salaada waa dheeraysan kartaan waxyaabo badan oo khayr ah oo wada samayn kartaan laakiin markaad kaliya tahay waad samayn kartaa marka dadka la joogtidna dadku waxay kaaga baahan yihiin duruufahooda iyo xaaladahooda iyo waxaas oo dhanba inaad la socotid oo adigu haddaad nashaaq badan ku hayo nin dhalinyaro aad tahay oo aad wax badan istaagi karaysid ma aha inaad ku xisaabtantid taade waa inaad eegtaa odayga 90 jirka ah iyo qofka weyn ee xanuunsanaya iyo hooyada ilmuhu ka ooyo waxaas oo dhanba waa inaad eegtaa marka macnaha halka waxaad dhihi kartaa waxaa ka soo baxaya qofka sheekha ah isaga naftiisa wuxuu u fidwoonayo ee naftiisa uu ku hagayo ee uu isleeyahay isku adkee bulshada markay gaadho inuu saa u fadhiyo way bulshada waa inuu fadhiyo oo waxba wuxuu ka fududahay laana nabiga cali sallallahu alayhi wasallam laba arrimood lama dooraysiinin illa ikhtara aysarhuma mid fudud buu qaadanaya marka mid fudud u gudbiyaa la rabaa marka haddaan u laabano marka ummadeena Soomaaliyeed maadaama aan Soomaalina wax arkaynaa fudeedka inuu Soomaalida inuu ceeb yahay oo arkaysa inay noqonayso hebel diintu fudeediya marka maxaa fudeedkii Ilaahay uu amaanay oo Ilaahay uu doonay Soomaalida dhexdeeda uu ceeb u noqday oo loo oranayo ama taqaana sheekhaas diintu fudeediya oo tashadudka dadku u jeclaan ma dabeecadda bulshada mise wax la xiriira fahamkii diinta oo dadku ay diinta u fahmaan inay diintu ay tahay qalafsanaan iyo waji macbus horta tashadudku iyo adaygu oo qofku xagga aad u yar leexdo waxaanu garanaynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabo aad u badan ayaa ku dhacday sameey jirtay Salmaan iyo Abu Darda baynu garanaynaa inuu Abu Darda maalinta soomi jiray habeenkii dhintukan jiray maalinta Salmaan baa u yimi markaas habeenkii kacay war iska seexo inta waxa islaantiisu aan aad isu qurxinayno markaas inta masaga dambe nagale markii dambe uu yiri xaq baa lagu leeyahay sawjada xaq bay kugu leedahay indhaha xaq bay kugu leeyahay ilaahay xaq buu kugu leeyahay fa'aati kulli dhi haqqin haqqahu nabiga sallallahu alayhi wasallam halka nin meel taagan oo yiri saaxan maayo oo fariisan maayo qoraxdaasan taagnaanaya nabigu soo qabtay marka bulshada dad baa iska jecel inay xagga tashadudka u socdaan laakiin maxaa loo baahan yahay aqoon yari baa inta badan keenaysa aqoon yari ayaa keenaysa inta badan qofku nin caalima oo rabbaani oo aqoon fiican diinta oo inta badan hadii uu ku xidhmo diintu waxa laga yaabaa inuu si sax u fahmo laakiin nin dhalinyaro haduu yahay waxa laga yaabaa inuu keligi oo iska jabsado oo kadibna tashadud badan inuu sameeyo aslanna waxaan u baahanahay bulshadeena Soomaaliyeed masalada inay diintu iska fududahay oo aan wax dhibi ku jirin in dadka la baro
oo duruusta lagu dhigo oo masaajidada lagu dhigo iskuulada lagu dhigo si bulshadu ay u fahanto in diintu ay iska sahlan tahay aanay adkayn saa darteed waxaa jirta qaacido ah al-aslu fil manaafici al-ibaaha aw fil ashyaa al-ibaaha wax kastoo dhulkan guudkiisa saaran ilaahay waa inoo abuurayo oo inoo baneeyay haddaanu qofku taa garanaynin waxaan arkaysaa dadka qaar marka waxay gelayaan maalan Sainsbury gu gelaya ama dukaamadan waaweyn maanta dhin roodhidaasu baarayaayo keeg buu baarayaayo wuxuu leeyahay waxa xalaalan raadinaya tashaddud غير العادية ما أوجا إن الأصل في الأشياء الإباحة ها وحكست إلهي دوك إنه إنه أبوري والذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه خلق لكم إلهي إذا كيدين أبوري مركز تشدد كأنت بدنا وحكينا يا هرت أقول يرين بكيني سا وحي حارانتي ولا حد ذي بقى وهذا مركز لا تريو هذا كوبان مثلا هذا خمرض ولا يغنى طفارك ولا يغنى هذه وحا حديدا ابن القيم حليه كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو وحكستو إلهي كأمصي إنه واجب هي أما إنه حرام هي أو حسكا بنان مثلا إنه واجب وحكوا بمويا أركان تاي إنه دترين كرينو وحرامتينا وحيرا كوبمويا وخنزير كيو وحيابها خمرجي يو ربدي وحيابها كوبمويا وح أنت كسر حدي وعفوي صدرت على هذا قف قدانو عفوي إلهي سيء أنا قاعدن أنا دينتا سفدود أنا أقول رقم سفدود أنا أفهم من لما بدي بعتها كل عذاب وحين مشقة مادية حقي مادي يهرو مركي يو وحكي جارية لبعته مشقة معنوية يكون عسى قف قد تشدد كبدني أنت بدن تذكر كلمات على حتاه بحيث يكون أهل النار كون وحويا الإلهي وعذابية تاسع وصومها من قال أهلك الناس فهو أهلكم فهو أهلكم ها تشدد كاسي لغة تاسي كيني سامرك لكن ماديا يوم معنويا لبدا بوحي إلى العلماء قفك عن أنت بدن دينتو لفضوضة وقادني لبدا بدباتو ككينا دباتو أيو ككينا مركا دي قاعدة باترتفق الضرر يزال قاعدة واوين المشقة تجلب التيسير عشان قاعدة واوين دب أودمي با وحيسوتشي دا فضيت الضرر يزال دب أودنا ولا زوليا ساترت بأننا مجتمعين هذا صوماليات وحيابها إننا آدو سهشنو عن قيمة برهين وحكي من قبيلة اللي قدقمه قبيلة وحلو قيب صدق يدا اللي قدقمه يدا اللي يسكو احترامه يدا إن لقد يقول إن حقه هره أو لسهشدو يعني دبت عيلة هاي أو الاسكود ظلميه أو الاسكود ظلميه وكع إن قبيل قفك وده شيكتا وحصح يدا قبيل كذا قلت لك تعرف تي دين تشيكتي لكن قاب كان هذا إنه الاسكود ظلمنا يو تعاونوا على الإثم جيبا يعني عادي النقطة عادي النقطة أو لسهشدي taasi marka waxay keentay tashadud kala ka dhashay in mujtamaci systemkii oo dhammaan lumada oo la isdulmiyo oo dhibaato badani la isu geysto sadarteed baa marka waxa aad u muhiim ah in qofku inuu fahmo diintu inay tahay diin iska fudud sadarteed ima shaafi xulan jiray ida tasaca al-amru ida daqa al-amru ittasac waxa la leeyahay kasto cidhiri galaaba way fidaan marka hadii aan hadda aan u degno amthila ahaan misaal ahaan aan u degno markaad fiiriso bulshada Soomaaliyeed waxaad isdhihi karto tashadud baa ku jira aan ayna diintu keenin ama shariicadu ayna keenin oo bulshada dhexdeeda oo fahamka ah qodobo ma noo tilmaami kartaa muayana oo 1 iyo 2 iyo 3 oo kale mesela horta waxa jirta de wax inuu la wadaagno muslimka oo dhan in culimadu markay ka hadlayaan masaladan taysiirul diin ama fiqh at-taysir oo kale mawduuceena markay ka hadlayaan waxa jira waxa la yiraahdo umumul balwa waxa dadkoo dhan aanay ka fakan karin waxa jira talaabooyin ay shariicadu marisay qofku suu u fahmo diintu inay fudud tahay talaabooyinka inaga waxay noo dhamisoo hoosgalayaan hore waxa weeyaan diintu waxay agtay waxa la yiraahdo su'ubatu shay wa usri takhallus minhu shaygu hadduu cuslaado oo aan laga bixi karaynin diintu waa fudaydisay مثلا maxaa kamid ah wadooyinka hadii roobdo oo dhooba iska taalo inta badan dhoobada kulli nijaas iyo waxba iska leedahay waxa kugu soo duulduurayay inaad iska ilaaliso waa adag tahay roobdo waa la fudaydiyay waxa la mid oo kale biyaheeni hadda dhulkeeni markii biyo iska fadhiyaan wixii ku la xiriiray ee dhooba iyo duxul wixii ku xayaabo ku soo daadata iyo waxa soo dhan wax dhiba inaan ay lahayn waxa la mid ah qofkii Soomaaliya hadii afkiisa wax galaan iyo hadii boor galo iyo waxyaabaha soo dhan iska fududahay waxa la mid ah waxyaabo inaga inuu isku tasho xijaabku waa kamid waxa laga yaabaa qofkii isoo Ilaahay inoo soo dajiyay inuu dumarka la saasturo bal laga yaabaa qofkii inuu isku dajiyo isagoo ama yira alla ilaahay kala xiranaya waa ka noocana oo sifadaha leh oo qaabka u talan oo
marka taasina waa wax xitaa waxyaabaha aan maqlay yaab kale waxa kamid in la yiraahdo xijaabka nooca waxa la yiraahdaa kasalifiga ka noocaana kuwaas la yiraahdaa ilaahayna ma kala day qaybin marka qaybintu bulshadeena waa tashadud nooc kamid ah weey macna mesela markii hadda dumarka laga hadlo kale fiqiga islaamka ama ragga laga hadlo markii dharba laga rag iyo dumarba awrada raggu ay inay asturaan waajib ay ku tahay way tilmaantay diintu sax dumarka awrada ay asturaan inay waajib ku tahay asturaan way tilmaantay sax oo way cadda sax marka dharkana ragga waxa laga xarimay xariir inay xidhaan dumarkana dharko dhan baa loo baneeyay marka baqaayista inta aan ahayn ma oran kartaa qofku hadduu isku ciriiriyo oo shakli iyo madmuun iyo wax kale waa la shaka waa wax weyn oo waasaca buu soo yareeyay sidii niga carabiga nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri laqad hajarta waasican wax balaaran baad inagu yareysay marka culimadu waxay yiraahdaan sideedaba qofku hadduu rabo inuu tasaahul sameeyo yani inuu si sahlan oo fudud diinta ugu dhaqmo iyadoo diinta iska fududahay wuxuu u baahan yahay in horta inuu nusuusti kitaabkii sunnada aanu ka hor iman ودينا كلا جرو التساهله دينا عن إنه وجود بين مركب واحد ربع سيدي شريعة ودكتي إنه نركي سو حده سيدي شريعة ودكتي إنه عنتدي سو سمعيه سيدي شريعة ودكتي إنه ضدك ولا دقمه لكن أنا كينين مرض وحرنا أيوه شريعة سلم أنا ورن ده جروب كي حده أما شيخي الباني يجي رسالة على حده أما واحد جاره أو تشدد كيني يعني الله يمن حتى واحد كلا دود بولشة عن كنا والنهاي بولشة إنه هذا إنه كنا والنهاي يوروبا يمركب بولشة مسلم للجوا وكلا دون هاي إنه حلنا واحد يرفقه الأقليات وهذا لجنة الأوروبا للفتوى يا أبا هنا هاي نقول إن يريد إن يبولشة إنه بقى يمسلم ويديا وحي سؤال يجا ويجا واقع إنه كنا والنهاي قرنا يا لكن واقع إنه كنا والنهاي قف صوبا ليه شو كده ويدي مسائل بدنا هذا حلقة إنه جا هيستا حلقة يسقط ده إنه الشيء مركز كجواب يسدو هذا فرع عن تصوره مركز تصوره كجواب كرتاع مركز إنه مركز هذا معناها وحكم ذا وحيالها أو تيسير كأ فقه إن بيئة يدجانك كلا دوين إن لو لسه والدجان كان هذا عن جوني الدجان هذا كلا دوين مركز فقه جارو يا لك هذا الدجان كان اللي فقه جار وليه وحب الله يرد فقه الأقليات وعلماء كتب بدن بيكقرن هيئات بدن أو فتوى أو مد هالكن نوتشر لجنة الفتوى لجنة أوروبا الفتوى فقهاء الأمريكا باتشرا مسائل أدو ترى بدن بالويدية مركانو مروح سويدياني كذا يرد مثلا عم هالك كوكرا أما صومالي لقي أبو سؤال شو بدن أو أحيو عندو كشوا تابع إنني تشرين أما لو جو تابع كريوايو إنه لباره إنه يشوفه هايات إيو مجالس علمية أو فرن أو كشوا أفتح سؤالها وفي الأقليات كان قرنا إياه واللغة دي أنت إيميل قالوا ويب سايت كذا وسوي جوابي كرا ها وهذا أنا هين شخصي تيم وضع شغالين صدق عالم ويا صدق عالم ويا مركا هدي عن مركا فيرنو رخصوينك إلهي سبحانه وتعالى وحونسي رخصوين فربضان أو كم إذا سلاده أو لكلميو نخفك أو لمسحه تيسيرات بدن أو دينتي إلهي سبحانه وتعالى وليس أنا كغير جنبه والله يكلف الله نفسه إلا وسع هذه حتى وكسر الله سلاده سيكون قوتها ومعه ذلك الحمد لله إني فهمين بي يعني تيسيركي ولها مركا رخصوين كنوع عاصو كلا قاعد شديدا صح سادو أركتها تطبعنا ما تقنا وأركان برخصة قفك دوقات وكل رخصوين برسالة وعيب أو قدرية مركا أنت دينتو بلارنتاي فقهنا وواسع وأدو وبلارية علماء واحد ديدان قفكو إنه تطبع رخصة وحلا يلاحظوا إنه رخصوين كادوسا سميح يلاحظ تصندق حاجة مرافق لماذا إياه أما انحلال وحلا يلاحظوا أي كل دعاء هذو يلاحظوا شافعية مسألة واحد كقفت تسلم قاعدنا يا مركو مالكية تشوجنا تسلم قاعته حنفية مركو تشوجنا تسلم قاعته حنبيلة لا مركو تشوج ظاهرية ساس إنه السماء جاي ده وكه لك سماء مركو محل ربا قفكو إنه دليلك محاولو إنه فرعه مركو أدو آخرين كريو مسألة دي آخرية أو وحي كلا صار كريونا أنتو صفة عنو ضال عضو إنه يقتلوا أدلة تبع ودو ويلاحظوا واتا هذا نفترض حكوا حد ناريسا بأدو وكنول يهي بعد وكنول يهي سادرتيد بامركا تتبع عاسي نوع هدو يهي هذه محا حكيك هو سهلا ومشافيات waxay qabtaa iyaga baara kuwa kale maxaa taasi waa khatar macnaha daawadaashan siin doona hadda oo ka codsanayna inay mowduucan ka hadlayna ay wax ka weydiiyaan inta laakiin daawadaashan u gudbin waxaan rabaa inaan kala saarno ruqsad oo ruqsa oo nabigu u sameeyay oo xadiis iyo ku timid oo salaadaha kulmintooda oo kala sax iyo mataqaana masax oo kala iyo ruqsasta noocaas oo kala oo dadka soomana
iyo masaa-isha fiqiga ee culamadu isku khilaafeen aragtida kala duwan waata صح marka middan ruqsada ah iyada nabigu uu mataqaanaa uu inoo sameeyey صح in qofku uu ku camal falo waaba matluub soo maaha in allah inuu qofku ruqsada ilaahay qaato inuu jecel qaato ha ayuu jecel yahay in taas allah marka- yuxibu Ah. xadiiska dootaa sheegin Ah. inaad rukhsastiisa qaadataan Ah. buu jecel yahay Hay. in cazaa'imtana markaa inaad samaysaan Marka marka tan- matluub weeye tan masaa-isha fiqiga ee culamadu isku khilaafeen sax ka waran qofku haddii uu mataqaanaa masaa-isha fiqiga isku khilaafeen aragti mucayana inuu qaato qofku dee culimadu waxay yidhahdaan ilahi subxana wa taala qur-anka wuxuu ku yidhi fasalu ahla dikri in kuntum la taclamuun. qofku nin shiiqa oo uu arko inuu caalim yahay oo fatwadiisa wuu qaadanaya wuuna ku qanci karaa waayo isagu waa caamid waxna ma baari karo waxna ma eegi karo saa darteed ba culimadu waxay yidhahdaan qaarkood qofku inuu madhabtiisa inta badan intuu barto oo iyada la socdo ayaa wanaagsan oo xitaa culimadii waaweyneyd imaamu shaafici axmed markay iyagu soo yimaadaan hadduu masaladan saanu qabo waa ka tegi jiray ha hadduu imaamkii soo yimaado imaamkii saanu qabin tiyaas isagu qabo ayuu samayn jiray marka qofku de waxay ku xidhantay cidda wax weydiinayo ha marka ninka caalimka markuu weydiiyo oo u fatwoodo fatwadaa waa inuu qaato marka macnaha dadka soomaalida badankood waxaa laga yaabaa in masalada fiqiga lafteeda Ya. oo sheekh shaafici iyo imaam malik ay isku khilaafeen Ya. ama xanaabilada Ya. inuu masalada xanaabilada inay tahay xaq Ya. qofki uu baro waxa kalena ay baadil yihiin oo ayna xaq ahayn marka taas miyan nooc ahayn taysiir ka hor imanaya horta haddii de ay noqoto soomaalideena markaa fiiriso weliba soomaali ahaan kasoo qaadba macnaha bismillahi raxmaan raxiim oo kale qofku Sax. akriyo Sax. oo bisin kor u akriyo Sax. masale khilaaf culamadu isku khilaafeen wey aad iyo aad nin kastana adiladiisa wata sax marka ninkii shaaficiga bisin kor u akrinayay sax hadduu u arko ninkan bisinka hala qaryala inuu bidca ku jiro aad iyo aad oo uu wux yahay taa miyayna ahayn nooc kamid a mataqaanaa taysiirkii laftiisii oo horta waxaa jira laba arrimood waxaa jira nas odhan karnaa baa saddex arrimood nas iyo fahmu nas iyo ijtihaad caalim caalim nasku waa de xadiidkii iyo qur-aankii qaabka loo fahmayaana waa waa sheeko kale ijtihaadka caalimkuna isna waa jiraa oo hadduu caalimku dadaalo ijtihaad sameeyo xitaa waxaa la yidhi hadduu gefo waa iskama ilaalin karo inuu gefo waa loo dembi dhaafayaa saa darteed dadku waxaa dee tashadudka keenaya taysiirka naga fogeynaya qofku hadduu caalimka qowlkiisa u arko inuu yahay naskii ama fahamkii caalimka u arko inuu naski yahay shiikhaagu adiga hadduu saa kuu fatwooday madhabtaadu hadday saas tahay aniguna aan madhab kale qabo ama shiikh kale aniga saan ii fatwooday macnaheedu maaha anigu inaan naskii khilaafay oo aan mubtadic iyo faasiq iyo kaafir inaan ahay maaha laakiin macnaheedu waxa weeyaan nasku way naga dhexeeyaa fahamkiisuna way naga dhexeeyaa ijtihaadka culimaduna way naga dhexeeyaa adiga kaaga markuu ijtihaado fahamkiisu maaha naskii marka dadku taas isku khaldaan wuxuu ku sheekh hebel baasaa yidhi haddaad khilaaftidna waa وحتى زنديق النسك بعد خلافتي القرآن كي عاد بعد خلافتي هذا القرآن كي عاد خلافتنا وما يشاقق الرسول وكوكو سوق عادنا يا نين هلاك سمي بعد هاي مبتدع بعد هاي ضال بعد هاي وهو دمات marka taysiirku halka ka baxay taysiirku ka baxaya marka dadka maxaa uga baahannahay qofku inuu markuu caalim u fatwoonayo ama cid u fatwoonayso inuu ogaado ruuxani ma nasba mise waa fahamkii sheekha mise waa ijtihaadkiisii haddii ijtihaad iyo faham tahay haddii ijtihaad laguma buriyo marka insha allah waxaan telefoonkan maarta wadaasha ka qaban doonaa waxaan ka codsanaynaa qofku inuu iska gaabiyo TV oo telefoonka nagala socdo ha assalaamu calaykum wa calaykum assalaam ha magaca walaalay walaal waxaa la dhahaa shukri maxamed shukri xaggeed naga soo wahaysaa cimaaraadka haye kusoo dhowo barnaamijka maxaad ku beeran lahayd ama aada weydiin lahayd sheekh waxaan ku weydii lahaa shiika waxaan weydii lahaa hal su-aal waxaan walaalo horta cimaaraadkan joogaa gurigaa niman ka kireeyey oo afrikaan ah niman keligood waahay nimankan waxay igula heshiyeen inaysan naag iisoo gelinaynin marka haddaan gurigii markaa imaada nin soomaaliya oo mudawac ahaa guriga joogo mar walba wuxuu leeyahay gurigan waa lagu sinaystaa naagoo la keenaa markaasaa nimankii ku qayliya anigana waxba weli maanan arag oo nadarti weli maanan dhihin marka qofkii guriga iga on ka kireeyay ilaa anigaba kireysta maskiinaan ahaaye ma ku qayli karaa oo ma dhihi karaa iga bax gurigayga dabaa keentay aad baa umahadsan tahay su-aashaada waan fahnay aad baa umahadsan tahay oo sheekhu kaa jawaabi doonaa shukr insha allah qofka xiga asalaamu calaykum
السلام عليكم. السلام ها ولا المقعة عليكم السلام ورحمة الله. مقعة ولا تي في شقة بعد ورا عليها waan ka xunnahay ka go-ay qofkaas qofkii u dambeeyaan ka qabanaynaa daawadaasha qofkii ugu dambeeyey. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ها مقعة ولا لي ولا سؤالك ودين كرم مقعة ولا لي ها waad weydiin kartaa magaca magacay gabadh Soomaaliyeed ee Soomaaliya kala soo hadlay sheekha waxaan weydiin lahaa ha aabahayda anaga yar furtay dalka dibadiisa hay kadib nin buu igu daray marka waan diiday maxay diinta ka qabtaa haddaan kala guursado aabaha wiil buu kugu daray kadib waan diiday waa diiday ha miyuu ku furay marka wiilkii aabaha ku meheriyey maayo iguma sameeyay kugu meeriyaa waan diiday ha macnaha waxba kuma mehersanid ba ayuu sameeysan inuu bixiyo rabo wiilaha marqatay gabadheedii ninka aan kugu daraa marka waxaan idin maayo ma rabo okay insha Allah haye bismillah marka aabaha baari si fiican baari ugu meeyay diinta maxay ka qabtaa sheekha iyo weydiina okay insha Allah haye ma xasantahay موضوع كله هرتا معناها سؤالها وان وصل نقوننا لكن موضوع النسي او ان اوغا فائديسن ما حد سورن كرتها شيخ سعيد bulshadena Soomaaliyeed diintu inay tahay diin fudud oo maartay aan ahayn diin adag iyo u baahan tahay in lagu wacyi geliyo saad oran kartaa sida ugu fudud aad sadii karto arintaas waa lagu faafin karaa bulshada dhexdeeda bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa iska fududahay oo waxa loo baahan yahay culimadu ay masaajidada oo kale duruusta markay dhigayaan dadka inay si fudud oo sahlan oo cunfi iyo diintu inay waxaasi ku jiraan iska fududahay oo dadka inay ugu dhigaan dhexdooda inay aadaabtii iyo akhlaaqtii inay baraan oo ardayda laftooda aan cunfi aan iskula dhaqmin iskuulada waxa loo baahan yahay saas oo kale in macallimiinta ay ardayda inay baraan akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo diintu ixtiraam iyo inay iska fududahay in la baro in bulshada dhexdeeda lafteedu saas oo kale ayaa muhiim ah waxayna dadku fahmi karaan runtii marka loo sheego qaabka diintu wax u fudaydiso dadku si fiican bay u fahmi karaan مثلا imika haddaan dhowr ka tilmaamo arrimo halkan muhiim ah runtii ah qaabka shariicadu ay diinta inoogu dhigtay inay iska fududahayba waxaan soo qaadanay markii hore su'ubatu shaygu hadduu adkaado inay dadku fahmaan diintu waa fudaydisaa haddaad istaagi kari weydid salaadii fadhi baad ku tukanaysaa weysada haddii la odhan lahaa madaxa maydha hadda dhibaata inagu noqon lahayd marka wax kasto adag diintu way naga daysay marka dadku inay saas u fahmaan waxa kale muhiim shaygu hadduu soo noqdo oo takraar sameeyo diintu waa inoo fudaydisay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yaan yuurta ama bisadu way inagu dul dawaaftaa way soo noqotaaye waa daahir waxay cabtaay wax dhiba ma laha waxa kamid ah shaygu hadduu fido intishaaro oo faafo isna markaas oo kale iska fududaadaay wuxuu noqdaa wax fudud buu noqdaa مثلا علماء الحكومة الإيطاليين dadka deymiya tujaarti buug bay leeyihiin ku qoraan Soomaaliya hadii loo nala buuga iska daaya hadii deymahoodii waa lumaya waxa kamid ah waxyaaba intishaaray qofku inuu shaqeeyo oo wax intishaaray laakiin inuu bil qaato fasaxa hadii uu nastu u baahan yahay halka waa fudud oo lacag salasiyo waxa kamid masaajidada in la xidho berigii hore masaajidadu isku furnaan jireen لكن بريها عندما علماء حنا إن الحراوة بنانته وايو لأنه حنا wax qaali oo lix oo kala mikrofon iyo waxyaabo badan oo qaali oo la xadi karo ayaa oo kala marka shaygu hadduu adkaado iyo hadduu soo noqdo hatta quraanka in dadka caruurta la baro waaga culimadu wax dheen xaraan weeyaan qof ciisho cibaada marka dambana baahida ay faaftayna in la baro inuu qaadi karo masxafka marka waxay qabaan madaahibtu afartuba qofku inuu quraanka taaban karin hadaan weesa qabin laakiin hadduu ilmo yar yahay inuu u banaantahay marka inuu taaban karo oo uu baran karo waxa kamid ah shaygu iska yar yahayba oo taafi iska yar yahay dhiig yar oo ku soo duulay iyo salaada dhexdeeda dhaqaaqday iyo waxyaabo yar yar baa jiro diintu aanay eegin laakiin hadduu qofkii isagu waxyaabaha eego wuxuu gelayaa marka baabkii
adayga wuxuu ka tegayaa baabkii fudaydka marka mar alaalay marka qofku uu dee fiqh taysiir wax ka fahansan yahayba wuxuu dareemayaa xitaa dhaqankii bulshadii marka masaajidka la isugu yimaado qofba waxa laga yaabaa inuu intuu garabka kugu saaro oo kugu dhajiyo adinkaa kugu dhajiyo oo dee isaga sii xadiiska loogu soo dhigay kadibna laya duruufahaaga miyuu adinku ku xanuunaya miyaad xanuunsanaysaa maxaa dareemaysa waxba eegi maayo khushuucdiga dhanba wuu kaa kaxaynaya marka dee culimadu waxay yidhahdaan tatbiiqu nas baa muhiim in la fahmo naskii waa sax wuu jiraa oo kitaabkii iyo xadiidkii wuu jiraa laakiin seen u camalgelinaa mashaakilka ugu weyn in haystaana waa camalgelintii ayaa dhibaato inaga haysataa waxaynu ognahay darar oo dhanba shareecadu inay tiri hal la zuuliyo in wax darar haddii mujtamaca ka dhex suulaan maxaa imanaya wanaag unbaa imanaya wanaag iyo fudayd baa imanaya laakiin haddii dararkii la bilaabo ama dararkii aad tiraadid hebelka khalad buu wada ama shaki iyo waxa waa la isku wareerayaa marka inta macnaha labadii gabdhood mawduucan ka hadlaynay runtii lama xiriirin su-aalahooda laakiin gabadha hadda imaaraadka naga soo wacday wax lagu yiri oyna iyadoo arag ayay mataqaanaa tiri rag ma ku qabsan karaa ma ku canaanan karaa oo nin baa idhahaa mataqaanaa way keenaan way sameeyaan waxan marka arrintaas iyada maxay macnaha qofka sidiisaba haddaan si kale u dhigno qofka wax ijaartay wax laga ijaarto xaqa isaga u leeyahay maxay tahay xaqa dadka ijaartay ay ku leeyihiinna maxay tahay qofka isaga wax ijaartay qofka wax laga ijaartay guriga iskale dadka ijaartay marka hadda guriga غير muslimiin ama salan guriga ijaaray baa haystaa gabadha iyada guriga lahayd sax dad bay ka ijaartay afrikaan ay tiri oo laga yaabo inaan muslimiin ahayn sax dadkii bay u shardiday inaysan naaga la iman gurigeeda sax laakiin nin guriga waardiye u iyada oo Soomaali ah ku dhaaway la yimaadaan oo sheegay kaas ku qeylaa iyagana way inkaraan masalan horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu inagu yiri ya ayyuhal ladina aamanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu haddaynu dad xukumayno oo dawana iska hubino haddana caqdi bay ku jirtaa caqdiguna ijaaradu waxa weeyaan waa caqdi laazima oo ilaa inta ijaaradu dhamaanayso kama bixi karto marka ma oran karto de si sahlan iyadoo warba hubin hadday soo xaqiiqsato inay shuruudihii caqdiga heshiiska kula gashay ay buriyeen hadda markaa waa buris oo xukumi kartaa markaa oran kartaa deesaan ku heshiinay waad ka baxdeen xitaa culimadu waxay qabaan marka qofka heshiiskaas oo kala baxo inuu ka baxayo gurigii lacagtii hadduu wada shubayna in loo soo celinayn gabadhi marka hadda iyadana hamar oo iyada maxaa laga rabaa inay warka horta hubiso iyagu way inkirsan yihiin qolooyinkii kale warku inaanu jirin marka gabadhi hamar oo aabaheed diiday waxay sidani dhaqankeeni weeyaan xooga adkaa iyadoo shardi waxaa guurka rida darafeen in labada qof ay deelan guurka waxaa laga rabaa sakan iyo deganaansho iyo xasilooni baa laga rabaa ma isjiijiiso iyo dagaal iyo qof aadan garanaynba in dhibaato laga yaabaa dee naxariista ku jirta horta aabe iyo hooyo ilmahooda ma dayacayaan waxaa laga yaabaa ninkaa u guurinaya ama kula taliyay inuu ahaa dee qof ahlu khayr oo wanaagsan oo aan dayacayn laakiin dee dooq bay leedahay hadday iyadu diiday kan dambe ay guursanaysona dee aabihii waa laga rabaa inay la soo xidhiidho weligiibu u yahay aabe oo hadday mid hore diiday macnaheedu maaha haddii kay doonto iska guursato iska tegayso marka halkaan ma odhanaynaa yani soomaalida inta badan waxay fiiriyaan taysiir marka fiqi taysiir laga hadlayo waxaa laga yaabaa gabadhan in la yihahdo waa caaq waalidkeed bay diiday oo jaanibka caaqa loo xukumo laakiin jaanibka taysiirka shareecadu ay siisay oo gabadhan in iyada la siiya khiyaar in la weydiiye jaanibkaas in la xoojiyo ma dhici karta bulshada dhexdeeda oo aabuhu gabadha xataa cudurdaar uu siiyo oo uusan u arag inayba caaq tahayba xaggaas horta inay bulshadu fahantaa aada muhiima qofku inuu dooq leeyahay xilligii hore bulshooyinka soo furnayna t v iyo internet iyo telefoon lasoo soo dirayo iyo waxaan aanay jirin waxaa laga yaabaa qofku inuu tuulo yar iska joogo magaalo yar iska joogo oo intan hareerihiisa ku qanco laakiin hadda dhalinyaradii waxyaaba badan bay eegayaan waxyaabaha badan ay eegayaan waxaa loo baahan yahay waalidku inay la eegaan oo aanay khasbin oo ay dookooda u daayaan in ka eegaan hadduu idin yimaado mid baa nabiga sal slam yiri diintiisa iyo akhlaaqdiisa ayaa ka raali tihiin u guuriya marka culimadu waxay qabaan inuu dee guurkii aanu ansaxaynin haddii qofkii la khasbo marka waalidku runtii xaq kuma laha inay ilmaha khaasatan dembi bay sii geliyaan hadduu isira u guuriyo lacag wax ku qaado iyo mansab ku raadso iyo waxyaabo kale ku jidmar marka macnaha in jaanibka caaqa la xoojiyo ma waa in jaanibka kale ee khiyaarka la siiyo marka gabagabadii barnaamijkii baa dhammaaday waqtigiisii marka adoo soo koobaya daqiiqad ama wax ka yar maxaad ummadda Soomaaliyeed kula talin lahayd si ay ugu baraarugaan fiqigan taysiirka ah inay diin fudud tahay
ilaahayna uu fududeeyey in la fududeeyana dadka dhexdooda ay mataqaan loo baahan waxaan oran lahaa runtii bulshadeenu dee duruufo badan iyo dhibaato badan bayn haystaa inta badanna waxaasoo dhan tashadudka baan anigu arkaa ayaa asal u ah marka waxaa loo baahan yahay dowlad ahaan ama maamulo ahaan iyo bulsho ahaan iyo culimo ahaan iyo dhalinyaro ahaanba dadku inay ka shaqeeyaan inay u fahmaan diintu inay tahay diin fudud weliba dhalinyarada aad waxaan ugula talinayaa dhalinyaradu isriixriixan oo qoloba masaajid bay wax ka barataa waxaa laga yaabaa inuu kuu haysto inaad mubtadic tahay faasiq tahay aada uga fog tahay laakiin waxaasoo dhan inay jirin marka haddii arrintaas kale xidhnaanshuhu ay saas u badato oo dadku aanay wada doodin oo wada hadlin oo wada fadhiisan oo wax isla eegin tashadud iyo cuqdad baa la kala qaadaya masalan yani raalli adigoo macnaha culamada qaarkood baa waxaa dhaca in mas'ale fiqi ah uu si u fadwoodo sheekheeda iyada ugu fududey inay sidaa tahay marka ay dhahaan hebel diintu fududeeya oo sheekhiiba aad arkaysa shuuq badan oo leeyahay hebel diintu fududeeya middaa maxaad odhan lahayd adoo kala dardaarmaya fahamka noocaas oo kale gaar ahaan dumar ku badan yahay horta diintu horta cidna ma fudayso diinta ilaah baa fudaydiyey diinta waa iska fududahay culimadu waxay dhahaan diinta qof kale waa fudaydiyo qof kale waa tasaahul hadduu qofku tasaahul diinta ku sameeyana dee waa dembi buu galayaa waxay yidhahdaan culimada waxa la yidhahda diin bay fudaydiyeen waa cilmaaniyiinta oo raba dadka xijaabka la tuuro oo waxaan la sameeyo saas loo fudaydiyo laakiin inagu dadku wax laga yaaba inay u baahan inay fahmaan diinteenu inay leedahay fiqi waasico ballaadhan fiqigaa ballaaranina waxa laga adigu inaad mas'ale ka heshid oo sheekha saa kugu fadwado anigana sheekhaygu saa igu fadwado inaga madhabteena shaafici bay ahayd waxa laga yaabaa madhabta shaaficiga fatwa ku fatwoono culimada ku fatwoodaani يعني واحد يدياي ما جيران ما معناه هذا فتوى كلو حنبلي هيستيد اما انا او ارغتي اني تاني صحسن تahay كل ميدون با هيستا ابر مذاهب كل ميدون با هيستا ادي اد marka inaan isku riixin baa اد اد baan ku mahadcelinaa Sheekh Saciid Maxamed Ducaale aad ma xasanta waxaan mahad ballan u celeynaa daawadaasha qiimaha badan ee TV-gan Somali Channel waxaan kaloo mahad ballan u celeynaa farsamayaqaanada barnaamijka Maxamed Yare iyo Cabdullaahi Yafarna iyo Cabdi Samed انت ان كان كل بدون برنامج كان اوكله ومحمد شيخ خدان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين داودياش قيمها بدن التي في كان سومالي جنرال ميل كستود كجوجتان دنيا دعالدeda السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. daawadaasha qiimaha badan oo ku soo dhawaada barnaamijkeena maalin kasta oo talaada ah saacadan oo kale idinka imanayay studio Somali Channel magaalada London si toos ah barnaamijkaas oo magaciisu yahay shariicada bulshada oo markasta aan ku falanqeyno mowduuc muhiim jiddan oo dadku u baahan inay wax ka ogaadaan oo kamid ah mowduucda aadka muhiimka u ah maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa barnaamijkeena fiqiga la yiraahdo fudaydinta ama fiqu taysiir carabi lagu yiraahdo ama af Soomaali markii loo bedelo noqonaya fudaydinta ama diinta ama shariicada islaamku وواحد فضل ويان إله سبحانه وتعالى قرآن كسب حكيري يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي وحو إذن لدونيا فضيت إلهي سبحانه وتعالى ما إذن لدونيا وح وليس إذن لما دونيا سأدرادد مركز شريعة إسلامك أما دين إسلامك ودين فضيتة بطبيعتها مركز ما أنتم حال الموضوع أنك قادم دونا محوية هي معناها فضيتك أما متقنا شريعة إسلامك يفوضها محوية هي waxyaalaha lagu gartay macaalimta ama tilmaamaha ama xayihiin qofka hadii uu qaato ruqsooyinka iyo waxyaalahan ma taqaana ruqasta ee la baneeyay waxiga oo ruqasta uu daba ordo oo uu cazaamti ka tago muxuu noqonayaa waxaas oo dhammaan ka hadal doonaa barnaamijkeena maanta waxa inoo soo diyaariyay oo studio Somali Channel la jooga sheekh kamid ah culimada Soomaaliyeed ee wadankan degan UK waa Sheekh Saciid Maxamed Ducaale Sheekh Saciid Maxamed Ducaale waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo dhexe iyo sare wuxuu ku soo qaatay wadanka Soomaaliya wuxuuna ka soo baxay dugsiga sare ee Janal Daawud kadibna wuxuu tagay wadanka Sacuudi Carabiya wuxuu galay jaamacadda Islaamiga ee ku taala magaalada Madiina Munawwara wuxuu ka soo baxay kulliyadda shariicada lagu barto ee ku taala jaamacaddaas ee Madiina Munawwara ku taala ayuu wuxuu ka soo qaatay macnaha jaamacaddiisii ama marxaladda jaamacadda waana imaam iyo khatiib hadda wuxuu ka yahay masaajid ku yaala bariga London oo lagu magacaabo Masjid al-Huda ayuu imaam iyo khatiib ka yahay marka hore ku soo dhaw Sheekh Saciid Studio Somali Channel waxaan rabnaa Sheekh Saciid bal inay dadku fahmaan waxa laga yaabaa in Soomaalida ku cusub tahayba inuu macnaha diinta faham ay dadku fahmaan shariicada islaamka iyo diintu inay tahay wax fudud oo culays aan lahayn marka bal noo sharax fudeedkaas diinta ay fududahay muxuu yahay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد aad baan kugu mahadinayaa adiga iyo TV-ga Somali Channel khayrka u taagan jazakum Allahu khayran inta kadib diintu asliyan waa iska fududahay Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala ka dhigay diinteena diin fudud aayadaad ku bilaabatay yuriidu Allahu bikum al-yusra wa iradatullah Ilaahay baa doonay Ilaahay wuxuu doonay inay diinteenu isku noqoto diin fudud marka fiqh taysir macnaheedu waxa weeyaan inay dadku fahmaan dadka muslimka inay fahmaan inay diintu tahay aslan diin iska fudud oo maxay noo cadeynaya waa doonid Ilaahay baa doonay halka waxaan ka fahmaynaa hadduu qofku diinta isku adadkeeyo doonida Ilaahay uu ka soo horjeedaa sadarteed ba aayad badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu tilmaamayaa inay diintu fududahay hadda aayada yuriidu Allahu bikum al-yusra wala yuriidu bikum al-usra waxay ka dambeysay soonkii oo dadka waaweyn iyo qofka nuujinaya iyo qofka xanuunsanaya iyo waxa soo dhanba in laga cafiyay Ilaahayna uu fudayd la doonayo حتى الطهارة إلهي مركو هذي ويصدق إياه إلا يستاهريه وحيري ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم إلهي حرج يا رضي إذن لما ربوا حتى إلهي سبحانه وتعالى مركو كوري محرماتك وحيبا إن لك حرمي حق النكاح يعني لقول سنكرين يعني هو يدا إيه ولاش أرمها صدام إلهي سبحانه مركو سو شيء وحيري يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم إلهي يدون يدون يا وصلنا كوي هراء وإذا راعي حمر إنه تقعد كيو هذا حق سيدنا بيسي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إلهي وحدونيا مركز توحى هذا يريد إلهي بدونيا يريد ينفض يديو وهي إنسان كحكو أبورا ضعف جينا وحل الصعدة اللي إلهي سجى خالق إنه أبورتايا إنه فض يديو أحكامت إيو نلاش إيو دين تبين إنه نقط وحفظت سنو قبل حكرينه وهي ضعيفين بعنا هاي عقليا وجسميا وعلميا انت ما احنا قلنا هاي ضعفاء آيات عامة باتشرت إلهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أصلا إلهي حنوت المام القرآن كم ينسكفز بهاي ولقد يسرنا القرآن بإلهي القرآن كوعدي سيك برشدي سيك ودقن كسوي حصل دم با مستر كينو با يميشن وحكا قادنا با أصليا بي بس كوضا فضل ضحي إن إلهي وحكرت المام هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلهي إننا دورتي هم المسلمين دورتي دين ترى وح عيريا أهل أقلين سادرت بالي حتى رسولكم حكوا صفي صفات كالنبي محاكمتها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه إلى وحلي نبي إيديك إيدين كم ده إيديني أو أي كو عدكت هاي مع أن توحد اللي واحد اللي بيا تشدد كعليه قبل سبعة كو عدكت هاي دين تو إلى سوف تدق على تنبوش عليها حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مؤمنين تنا وقولي برسنيها يوم حريص بدنيه مركب صفات النبي صلى الله عليه وسلم إنه فدودي هاي حتى صفات النبي صلى الله عليه وسلم كتبتي هراء توراة إنجيل إلهي سبحانه وتعالى وحو إنه قلت المعامل يا قرآن كا إنه نبي هاي سهلنه ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه نبي يقول على يدك هراء العلاسيدي صارنا ونجاسته كلا إنه مرض ماشي جويان هدي قفل ديوم يعني يعني ديال لما قاعد يشيلون دل يعني واحد أصلاً بقى نبي صفات كيسة كم تاي مركب كتبت هراء لو شيء إنه إنك قاعد يدون علاسي بدنا ومضيه هراء لصاري إنه مركب إنه الله سبحانه وتعالى بري إنه دعين كنا محاكم ذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا إله عليس هنو حنبارين نبي يقول إنه شيء الله سبحانه وتعالى دعاء إنه نجأت شيء أو أقبلي marka hadii oo mataqaana shakhsi diinta islaamku ay tahay diin fudud shariicada islaamku ay tahay shariico fudud oo sahal ah oo ilaahayna nabigana uu inoo sheegay qof diinta lama baratamo oo lama xoogtamo ilaa way ka adkaataa oo diintu waa yasiru wala tu'asiru bashiru wala tunafiru u yiri maxaad oran kartaa waxyaalaha tilmaamaha ay leedahay ee uu aad tilmaan inay tahay diinta diin fudud qofka muslimka ee sheekha culimada looga baahay dadka in u fudaydiyo waxyaalaha mataqaana aad dhigi karto tilmaamaha ay aad u soo qaadan karto maxaa kamid ah horta diintu waa iska fududahay quraankana ilaahay subhanahu wa ta'ala ayad ka badan inoogu sheegay waxa kamid ah si qofku u fahmo su'aalaha badan ee madxadayga bal halkaas si raadiyo si taxqiiqi ilaahay subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu la tasalu an ashya in tubda lakum tasukum hadii la idin tuso waa sadar saxaabadu su'aalo badan ma weydiin jirin النبي صلى الله عليه وسلم marka diintu ku soo quraan ku soo dago si sahlan oo fudud bal isaga lagu dhaqmi jiray diinta su'aalo badan iyo may jirin iyo halka maxaa laga siiyay iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam garanaysa nin saxaabiya weydiiyay intuu nabiga
cumrigiina mar xajiya buu yidhi ma sanad kasta markaasuu nabiga haddaan odhan lahaa waa sanad kasta dee madana woodeen laanna adaygu iyo fudaydku waa dhaqanka dadkii hore suuratulbaqara magaca dhan maxaa looga dhigay reer banu israa'iil markii ninkii la dilay ay nabiyullaahi muuse uu ku yidhi gowraca neefkii qaaluu udcu lanaa rabbak mise jeer bay kusoo noqdeen qaaluu udcu lanaa rabbak qaaluu udcu lanaa rabbak kadibna ilahay kusii adkeeyey maalinka uur haddii qal lahayn waa fududaan lahayn marka shareecada marka sida sahlan lagu sheego oo le aayaddaas waxaas inoo amraysa xadiiskaas waxaas inoo amraya masalada fiqiga waa sida inaad saa isaga qaadatid oo aada waxba sii qodqodin qodqodkaasi wuxuu keenayaa in qofkii markaa uu dee isku adkayo in wax isku adkayo marka taasi waa ta koowaad nabigu sal ll sl saddex xadiis aad u badan inuu arrimaha inooga digay inaynaan diinta ka dhigin wax adag oo isagaaba yidhi bicustu bilxaniifiyati samxa waxaa layla soo diray diin iska fudud oo iska sahlan baa layla soo diray yasiru walaa tucasiru mucaad buu canaantay intuu dadka salaadii ku dheereeyey buu yidhi afataanun anta ya mucaad muftaan baad dadka diinta ka eriyeysaa marka diintu ku dhaqankeedu wuxuu ka bilowdaa qofku inuu si tartiiba u bilaabo oo u galo oo aanu isku adadkaynin saa darteed baa nebigu wuxuu leeyahay in allaha yuxibu an tu'taa rukhasa kamaa tu'taa cazaa'imu ilaahay wuxuu jecel yahay inaad ruksooyinkiisa wayna sii aan qaadano si uu jecel yahay inaynu go-aamadiisa oo diinta wuxuu nagu waajibay inaynu u qaadano marka laba arrimood baa muhiima su-aal badan iyo qodqodid badan waxay keentaa tashadud iyo adadayg inaad istiraahdaa malaa sidani ma aha sidii saxda ahaydna oo shaki badan ka gashaana iyaduna waxay keentaa dhibaato badan bay keentaa marka diintu runtii waa iska fududahay xitaa cumar radi allahu canhu iyo eeg ayaa wuxuu la socday safar marka isaga iyo cabdullaahi camar ibn alcaas iyo cumar iyo baa wada socdeen kadibna waxay yimaadeen meel dar ah xawd biyo laga cabayo markaasuu camar baa wuxuu yidhi yaa saaxib alxawd hal taridu xawdaka asibaacu dalkaagan miyay yimaadaan duurjoogtu iyo maka cabaan cumar wuxuu yidhi laa tukhbirna fa inaa naridu sibaaca wataridu calayna annaguna meesha biyu maa ka cabnaa kusoo aroornaa sibaacuna wuu kusoo arooraa marka noo sheegin annagu yaanaan waswaasa noo sheegin marka qododkaa badan iyo waxaas badani xitaa saxaabadu aada umay sii jeclaan jirin saa darteed baa cumayr ibnu isxaaq oo taabici ah ayaa wuxuu leeyahay saxaabo aada u tiro badan ayaan soo gaadhay oo iga horreeyey famaa ra'aytu qawman aysara siiratan dad dhaqankooda iyo siiradu wax iska fudud bay ahayd tashadud iyo adayg badani mid baa laga yaabaa marka sheekh saad arrintaas halkaa marka aan si ay diinta yusreedan u ogaano laba aan u kala qaadno mid waa qofka shaksiga ah oo isaga lafihiisa ku tashadudo oo masaa-isha markii laga hadlo mas'alo kastaba tay ka aragtahay isagu ku dhaqma oo naftiisa waxaya midna waa qofka sheekhiga caalamka ah dadka diinta u gudbinaya marka macnaha labadaas kan haddii uu noqday masalan hadda nabigeena salaada qofku markuu keligu tukanayo intuu rabaa taagnaadale markuu dad tukanayana dadku ilaalinaya marka ma oran kartaa labadaas kala soocideeda waa muhim oo dadku inay ogaadaan bay muhim tahay aad iyo aad see marka lagu kala sooci waxna waa wax dee bulshadoo dhan ka dhexeeya oo ilaahi subxaanahu watacaala uu si caama inoogu wajibiyey oo jamaaca aynu ku gudanayno waxaa ka mid ah salaadii ayaa ka mid ah waxyaabaha bulshada ka dhexeeya qofku waxaa la rabaa inuu eego dad kala duwan baa ku tukanaya masalan masaajidka oo kale nabiga sal slam wuxuu yidhi imaamku inuu salaada fudaydiyo waayo wuxuu waxa ku daba tukanaya dalxaaja mid dan leh mid xanuunsanaya mid kaloo dhibaato kala haysato mid waayeela marka inaad muraacaatu naas dadka inaad ilaalisaa xitaa nabiga sal ly slam waxaanu garanaynaa intuu salaada galo ayuu israhdaa dheeray markaasuu wuxuu maqlaa ilmo yaro ooyaya markaasuu salaada ayuu yareeyaa mucaad buu maagay oo salaadu ku dheereeyey oo nin geeliisii iyo waxaa iska raaci lahaa suuratu baqara ceshihii markaa wuxuu ina baray nabiga sal slam dadka marka aynu la joognona oo bulshadu ay wax wada fulinaysona in lays wada xaq dhowro oo lays ilaaliyo keligaa haddaa tahay waad dheeraysan kartaa saa doontaa u tukan kartaa soon hadday tahay maalin dhaaf waad soomi kartaa soonkaa waad badsan kartaa sadaqada intaa doontaad bixsan kartaa khayrkaaga waa wax adiga culamadu waxay kaloo tilmaamaan haddaad koox tihiin gaar ah oo isla og salaada waa dheeraysan kartaan waxyaaba badan oo khayra ooda samayn kartaan laakiin markaad keligaa tahay waad samayn kartaa marka dadka la joogtidna dadku waxay kaaga baahan yihiin duruufahooda iyo xaaladahooda iyo waxaasoo dhan ba inaad la socotid oo adigu haddaad nashaaq badan ku haya nin dhalinyaro a tahay
وأد بحبد استاي كريسيد ما هنا ku xisaabtantid taade waa inaad eegtaa odayga 9 jirka ah iyo qofka weyn ee xanuunsanaya iyo hooyada ilmuhu ka ooyo waxa soo dhan waa inaad eegtaa marka macnaha halka waxaad dhigi kartaa waxa ka soo baxaya qofka sheekha ah isaga naftiisa wuxuu u fudwoonayo ee naftiisa uu ku hagayo ee uu isleeyahay isku adkee bulshada markay gaadho inuu saa u fadeeyo way bulshada waa inuu fadeeyo oo waxba wuxuu ka fududiyaa لأن النبي عليه الصلاة والسلام حالي لما أحرم والله مد ورسينين إلا اختار أيسرهما مد فود بقادنا مركب مد فود وجود بيال ربع مركب هذا الله وانا مركب مدنا سوماليات قدامه عن سومالنا أركنا فضيتك إنه سوماليات إنه عبي هيبة وأركز إنه نقول نسوي اللي هيبة الدين تفضيها مركب محا فضيتك إلهي وأماني أو إلهي ودوني سوماليات هذا وعيب النقطة والله أرنا يا متقنا شيخ هذا الدين تفضيها oo tashadudka dadku u jeclaan ma dabeecadda bulshada mise wax la xiriira fahamkii diinta oo dadku ay diinta u fahmaan inuu diintu ay tahay qalafsanaan iyo waji macbus horta tashadudku iyo adaygu oo qofku xagga aad u yar leexdo waxaanu garanaynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabo aad u badan ayaa ku dhacday sameey jirtay Salmaan iyo Abu Darda baynu garanaynaa inuu Abu Darda baajo dhisoomi jiray habeenkii dhintukan jiray maalinta Salmaan baa u yimi roos habeenkii kacay war iska seexo يعني حتى بحرك إسلامتي سيان عاد سوق القرحنين ومركز ستر مثلا دم نقله مركز دم بيجري حق بالقولي هاي سوتشد حق بالقولي هاي إنها وحق بالقولي إلهي حق بالقولي فأعطي كل ذي حق حقه النبي صلى الله عليه وسلم حرك نين ميل تاجن ويرسى حن ماي وفريسان ماي وقرحة سنت تاجنانية نبي سواقبت مركا بالشدة ضد سكتش عل إني حق التجدد كأصعدان لكن محله بأن هاي أقوى يريبا أنت بدن كينيسة أقوى يري ayaa keenaysa inta badan qofku nin caalimo oo rabbaani oo aqoon fiican diinta oo inta badan hadii uu ku xidhmo diintu waxa laga yaabaa inuu si sax u fahmo laakiin nin dhalinyaro haduu yahay waxa laga yaabaa inuu keligi oo iska jabsado oo kadibna tashadud badan inuu sameeyo aslanna waxaan u baahanay bulshadeena Soomaaliyeed masalada in diintu iska fududahay oo aan wax dhibi ku jirin in dadka la baro oo duruusta lagu dhigo oo masaajidada lagu dhigo iskuulada lagu dhigo si bulshadu ay u fahanto in diintu ay iska sahlan tahay aanay adkayn saadarteed waxa jirta qaacido ah al-aslu fil manaafi' al-ibaha aw fil ashya' al-ibaha wax kasto dhulkan guudkiisa saarani ilaahay waa inoo abuurayo oo inoo baneeyay hadaan qofku taa garanaynin waxaan arkaysaa dadka qaar markuu xigelayaan mesela Sainsbury-gu galaya ama dukaamadan waaweyn maanta dhan roodhidaas u baarayaayo oo keeg buu baarayaayo wuxuu leeyahay waxa la raadinaya تشدد غير العادية ما أوجا إن الأصل في الأشياء الإباحة ها وحكست إلهي دوك إنه إنه أبوري والذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه خلق لكم إلهي إذن كيدين أبوري مركز تشدد كنت بدن وحكينا يا هرت أقوى يرين باكينا يسا وحي حاران تلو ولا حد ديبا وهذا مركز لا تريو وحالي كوبان مثلا هذا خمرض ولا يقنا طفارك ولا يقنا وحا حديدا ابن القيم حليه كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو وحكستو إلهي كعامصي إنه واجب هي أما إنه حرام هي أو حسكا بنان مثلا إنه واجبي وحكوا بنويا أركان تاينو دترين كرينو وحرامتينا وحيرا كوبنويا وخنزير كيو وحيابها خمرجي يو ربدي وحيابها كوبنويا وح أنت كسر هذي وعفوي صدر تعلم هذا قف قدانو عفوي إلهي سيء أنا قاعد أنا دينتا سفودت أنا أقول رقم سفود أنا أفهم من لما دي بعتها كل عذا وحين مشقة مادية حقي مادي يهرو مركي يو وحكي جارية لبعته مشقة معنوية يكون عسى قف قد تشدد كبداني أنت بدن تتك كلمات على حتى حسنا يكون أهل النار كون وحويا الإله وعذابية تاسع وصومها من قال أهلك الناس فهو أهلكم تشدد كاسي اللغة تاسي كيني سامر مركب ماديا يوم معنويا لبدا بوحي إلى علماء قفك عن أنت بدن دينتو اللي فضوضة يقعدني لبدا بدباتو ككينا دباتو أيو ككينا مركب دي قاعدة بترتفق يو الضرر يزال أو عدة واوين المشقة تجلب التيسير وعشان تقاعدة واوين دب أودمي بقى وحيسوتشي ده فضيت الضرر يزال دب أودنا ولا سوليا ساترت بأننا مجتمعيننا هذا صوماليات وحيابها إننا قادوا سهشنو عن قيمة بالحين وحكيم إذن قبيلة اللي يقول رقمه قبيلة وحلو قيب صدق يدين اللي يقول رقمه يدين اللي يسكو احترامه يدا لقد يقول حق هره أو
لسهشدو يعني دبت إلى ذحي oo la isku dulmiyo ولا اسكت ظلمي وكا إن قبيل قفك وده شيكتا wax sax هذا قبيل كذا كنت la isku taaruf tidii diintu sheegtay laakiin qaabkan hadda inagu la isku dulminayo taawanu al ithmigi ba yaan ay caadi noqday oo la sahashaday taasi marka waxay keentay tashadud kala ka dhashay in mujtamaci systemkii oo dhammaan lumada oo la isdulmiyo oo dhibaato badani la isu geysto sadarteed baa marka waxa aad u muhiim ah in qofku inuu fahmo diintu inay tahay diin iska fudud sadarteed imaam Shaafici wuxuu oran jiray ida tasaca al-amru ida daaqa al-amru ittasac waxa la leeyahay kasto cidhiidhi galaaba way fidaan marka haddii aan hadda aan u degno amthila ahaan mithaal ahaan aan u degno markaad fiiriso bulshada Soomaaliyeed waxaad is dhihi karto tashadud baa ku jira aan ayna diintu keenin ama sharciyadu ayna keenin oo bulshada dhexdeeda oo fahamka ah qodobo ma noo tilmaami kartaa mucayan oo 1 iyo 2 iyo 3 oo kale mesela horta waxa jirta de wax inuu la wadaagno muslimka oo dhan in culimadu markay ka hadlayaan masaladan taysiirul diin ama fiqh taysiir oo kale mawduuceena markay ka hadlayaan waxay jiraan waxa la yiraahdo umumul balwa waxa dadkoo dhan aanay ka fakan karin waxa jira talaabooyin ay shariicadu marisay qofku suu u fahmo diintu inay fududahay talaabooyinka inaga waxay noo dhamisoo hosgalayaan hore waxa weeyaan diintu waxay agtay waxa la yiraahdo su'ubatu shay wa usri takhallus minhu shaygu hadduu cuslaado oo aan laga bixi karaynin diintu waa fudaydisay مثلا maxaa kamid ah wadooyinka hadii roobdo oo dhooba iska taalo inta badan dhoobada kulli nijaas iyo waxba iska leedahay waxa kugu soo duulduulayay inaad iska ilaaliso waa adag tahay hadii roobdo waa la fudaydiyay waxa la mid oo kale biyaheeni hadda dhulkeeni markii biyo iska fadhiyaan wixii ku la xiriiray ee dhooba iyo duxul wixii ku xayaabo ku soo daadata iyo waxa soo dhan wax dhiba inaan lahayn waxa la mid ah qofkii Soomana hadii afkiisa wax galaan iyo hadii boor galo iyo waxyaabahaas oo dhan iska fududahay waxa la mid ah waxyaabo inaga isku tashino xijaabka waa kamid waxa laga yaabaa qofkii isagoo Ilaahay inoo soo dajiyay inuu dumarka la asturo bal laga yaabaa qofkii inuu isku dajiyo isagoo ama yira Allah ilaahay kala xiranaya waa ka noocana oo sifadaha leh oo qaabka u talan oo marka taasina waa wax xitaa waxyaabo aan maqlay yaab kale waxa kamid in la yiraahdo xijaabka nooca waxa la yiraahdaa kasalifiga ka noocaana kuwaas la yiraahdaa ilaahayna ma kala qaybin marka qaybintu bulshadeena waa tashadud nooc kamid ah macna mesela markii hadda dumarka laga hadlo kale fiqiga islaamka ama ragga laga hadlo markii dharba laga rag iyo dumarba awrada raggu ay inay asturaan waajibka ku tahay way tilmaantay diintu sax dumarka awrada ay asturaan inay waajib ku tahay asturaan way tilmaantay sax oo way cadda sax marka dharkana ragga waxa laga xarimay xariir inay xidhaan dumarkana dharko dhan baa loo baneeyay marka baqaysti inta aan ahayn ma oran kartaa qofku hadduu isku ciriyo oo shakli iyo madmuun iyo wax kale waa wala shaka waa wax weyn oo waasac abu soo yareeyay sidii Carabiga nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri laqad xajarta waasican wax balaaran baad inagu yareysay marka culimadu waxay yiraahdaan sideedaba qofku hadduu rabo inuu tasaahul sameeyo yani inuu si sahlan oo fudud diinta ugu dhaqmo iyadoo diintu iska fududahay wuxuu u baahan yahay in horta inuu nusuusti kitaabkii sunnada aanu ka hor iman oo dhinaca kala jiro oo tasaahul ah dhinacaan inuu u gudbin marka waxa la rabaa sidii shariicadu u dhigtay inuu dharkiisa u xidho sidii shariicadu u dhigtay inuu cuntadiisa u sameeyo sidii shariicadu u dhigtay inuu dadka ula dhaqmo laakiin aanay keenin maradu xidhanayo shariicada sahlan aan oran de groupkayga xidha ama sheekhiil baa aniga giirsaas loo xidha ama wax gaar ah oo tashadud keenay inuu la iman xitaa waxa kala duwan bulshada aan ku noolnahay bulshada in hadda inagu ku noolnahay ee Yuruba iyo marka bulsho muslim la joogo kala duwanahay inagu waxa leenahay wax la yiraahdo fiqhu al-aqliyat oo hadda lajnatu al-Europa lil fatwa ayaa u baahanahay inagu dhalinyaradeena iyo bulshadeena iyo inay weydiiyaan wixii su'aala iyaga oo iyaga waaqican inuu ku noolnahay garanaya laakiin waaqican ku noolnahay qof Soomaaliya jooga dad weydiisay masaa'il badan oo hadda halkan inaga haysta waxa laga isagoo deeranuu شيء مركز كجوابي سدوا ده فرعي عن تصوره مركز تصوره كجوابي كرتا مركز إنه مركز هذا معناها وحكم ذا وحيالها أو تيسير كا فقه إن بيئة يدجانك كلا دوين إن لو لسه والدجان كان هذا عن جوني الدجان هذا كلا دوين مركز فقه جارو يالك هذا الدجان كان اللي فقه جارو يقوليه وحب الله يرد فقه الأقليات والعلماء كتب بدن بيكقرن هيئات بدن أو فتوى ومد هل كان تني نوشر لجنة الفتوى لجنة أوروبا الفتوى فقهاء الأمريكا باتشرا
مسائل أدو ترى بدن بالويدية بركانو مروح سويدية نك دان يرد مثلا هالك كوكرا أما سومالي لقي أبو سؤال شو بدن أو هيو يدو كشوا تابع إنني تشرين أما لو جاوب كريوايو إنه لبارة إنه يشوفتو هاياد يو مجالس علمية أو فرن أو كشوا